السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel walba aad joogtaan iyo si kastoo idin soo gaara maqalkayga iyo muuqaalkaygu waxaan joognaa magaalada Nairobi waxa igu heliyay booqashada halkan aan ku imaanay walaal Faisal Karatay waxaan soo booqanay maama nadiif oo ah hooyo Soomaaliyeed oo joogta magaalada Nairobi xaafadda Islii maamada waxaan ugu imaanay oo ujeedkaygan booqashada uu ahaa maamada waxa fadhiya labada kaliyood baan shaqaynaynin xaaladeeda caafimaad aad ay u liidataa sidoo kale xaaladeeda dhaqaalana ayadana aad ay u liidataa marka inaan idin la wadaagno darteed ayaan halkan u imaanay waxaan idinku wareejin doonaa walaal Faisal iyo waliba maamada bismillaahir rahmaanir rahiim oo jidin meeshan ku suganahay waa xaafadda Islii magaalada Nairobi waxaan maanta soo booqanay maamadan xanuunsan maamada الحمد لله الشكر لله إلهي مرادكين هسنسل إني قانت أو قبطة أنا مساكن أنا كالمويت أن داودا إني أنا حالة تبرتي يرتا الموي إني تبرتي يرتا والإداوي أعمل لا من كل كفدي تبرتا سي قوتي مسلم أدي أتين أمتنا محمد أتين أي كالموي ولي قرانتي سين كجر ولا لا أنا إلهي ولا نمضي ميراي مساكن إن كالموي إلهي أبصد رسولك أبصد الرسول إله سين توجا أن إله إن توج مساكن أجانتي ولا الله سين قلي سين إن شاء الله إله دينا وبركة ديس إله سين توجا walaalayaal waxay idin ka codsanaynaa in idinka waxaan noo tari kartiin aanoo tartiin maamadaana lacagta lagu daaweyn doono kumaan kunay tagi doontaan anigana awood ma u lihin inaan u daaweyno keliyaalkana maalin kasta waxaa la dhakhtarka la wiigi laba mar laga dhaqaa anigana lacagtaas awood ma u hayno marka maxaa leeyahay ilaahay subxaana qaadirka waxaa ka baryaynaa inay caafimaad khayr qabato idinkana maxaa sanbabada xataa waa laga hayaa oo wadnaheeda xataa daciif waayo dhakhtarka haddii biyo badan ay cabtana jirka oo ka gali karaa hadhow maxaa leeyahay weena dhiman kartaa oo dhahay marka maxaa leeyahay hadda lacag hadda haysan xataa xaaladan lacag keenoo nagu dhahay waa la seexinaa marka anin lacagtii marka oo lagu safeyn lahaa iyo seexinteeda iyo waxeedana ma awoodno marka waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu wax khayr qabo inuu ilaahay noo soo dhiibo oo anagana maxaa leeyahay aan ku caawino hooyadeena lambar idinkala soo xiriiri karo oo halkan aan idinku qorno noo sheeg lambarkayga waa maxaa leeyahay 0722975806 lambarkayga magacaygan Maana Cali Ibraahim aa ku qoran eber 7 22 97 58 eber 6 walaalayaal waa u jeedaan waxaan soo booqanay maamadan xanuunsan san horeyba idinkugu sheegnay ayadana ay hadashay gurigan waxaa ka jirto xaalad maaragtay culeyskeeda iyo murugadeeda leh maamadan waxaa fadhiya labada kaliyood waa reer tabaalaysan oo waxba haysanin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan walaalaha muslimiinta waxaan idinku codsanaynaa inaad soo caawisaan oo aad garab istaagtaan qof kasta wixii maanta adduunka uu kala baxo aakhira ayuu helayaa marka waxaan idinku codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad reerkan aadka u dhiban iyo maamada inaad soo garab istaagtaan oo soo caawisaan ilaahay dartiis aad ku caawisaan qof kasta wuu dareemi karaa maanta markaad xanuunsan tahay ama aad garab u baahan tahay waa arrin culeyskeeda leh dadka dhan ma wada fahmi karaan laakiin waxaan idinku codsanaynaa si naxariis iyo walaaltinimo Soomaalnimo ku jirto inaad qoyskan iyo maamadan aadka u dhiban aad soo caawisaan waxaan idinku wareejinayaa walaal Faisal هذا ما تسنتها أرتر أنت معنا في عنه أرتر نقنا قاعدنيسيد مركا كل حوجد المعمد اللي بكذا ما ننكو عصب معنا دباتين كان سومالي ده هيستان أو قحطي وكا ودبنا قربها الجوجان مركا شعب كالسومالي ومد السومالي وحنا نقعد سنة معمدان يفهمل كذا وماشي كل دباتين قحطينا كوا كلي أنت اللي قلنا لقى جاري لها أرترت أو بلاونا معنا إيشك نظافينتا سيد كلي إذا لو نضيف لنا أم الله دقي لها إسبيتالك وحي هيستان ملها والله بلمية لكن شيلن إيمان تكون تكتملها وحي نوشك تويجي لبجر أم سدح جر كليها لقى نضيفناها marka walaalayaal telefonkaas aan ku soo qornay dusha aan ku soo qornay kala soo xiriir qoyskan si ilaahay inuu kugu naxariisto anagana noogu naxariisto marka sidaas iyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka qayb qaadan doontiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.